بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناكسن داوديال كنا سروادا وركي وجودن بيه قضبان وركن كوسو قادي دونو هدي على وينو وقدره وحكم ذا وركي وجودن بيه روشكا وحل حن كوسو بيري دجالك إسرائيل إيران شجنا إن كريملينكا وقرب تاجن يهي حكومة طهران هذا بيان رسمي وكسب بحي أقل كريملينكا الروشكا يو وركان لقاها الله يو أرمها لحري لحب جوجينتا عصب أو أي وذجارين إيران يسدو كل إسرائيل موقف كرسمي جا الروشكا يكون جهان دجال كبري قدحه وركي قدام بيعيون ويدين سوق بين دورا قد بدأ كلام وركي نقصه قاعد الدنا وحكم ذا معلومات كي قدام بيد وقيمه أو أي ساكي إسرائيل كجيسة مرن كغزة إنك بدن تضباط نقف أيال سوورين إياه إن دمشقوا أي سيد عفسو هذا ما وحى إسرائيل كأرجودن إسادة كرير غزة كدي مركي ويررو عن عادي هين إكلا كلنتي دين على إيران معلومات كوادن أرنتاس ين ويدين سوق بين دونا سلام ده وحنا يدين سوق بين دونا وركن أنا غيب كنا غدونا مدحونا أمريكا كدونالد ترامب وعجها دول كقول فتاي نيكي نتنياهو أها شيءنا haddii ay Israa'iil jooji weyso inay gantaal u rido xagga Iiraan inay noqonayso xadgudub weyn hadaba warka ka soo baxay madaxweyne Trump waan idin heynaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan xaaladda hadda taagan ayuu ka hadlay wax uu yiri ma ogolaan doono Mareykanka iyo nidaamka Israa'iil inay fidna ay ka dhaxkiciyaan anaga iyo walaalahayna gobolka uu la jeedo wadamada markaasi Carbeed oo ay markaasi isku dayayaan in ay ku kiciyaan Iiraan marka wararka iyo kuwa kale ayaan idin heynaa oo aanu barnaamijreedkan ku soo gudbin doonaa xitaa madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waa uu ka hadlay xabajoojinta way wada gaareen Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil soo dhawaada saaxiibayaal fadlan daawadee haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo bir adigoo subscribe saaranayo barteen YouTube korkumanayo wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha aan goor balkan ku soo baahino waa hagaagan ku bilowno wararkeena wararkeena waxaanu qaybtan ku bilaabeynaa warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe oo la soo warinayo in ay u muuqato mid wali hawada sare sabeynayso iyadoo aanay dhaqan gelin xabajoojintii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku baaqay dhinacyadu wali waxa ay sameynayaan in ay isweedaarsadaan hubka noocyadiisa culus oo ay midka kale uu ku tuurayo waxa la soo warinayaa in markaasi xaaladdu ay wali ay adag tahay Israa'iil duqeymaha waa ay sii wadaa haddaba xilli dambe oo ay u muuqdaan in dhinacyadu ay midadka kala qaadanayaan maadaama dagaalka lagu kala adkaan waaye Iiraan guul ay sheeganayso Israa'iilna guul ay sheeganayso waxa goor dambe dagaalka hadda ku soo biirayo dawladda wadanka Ruushka haddaba waxa la leeyahay aqalka Kremlinka war-saxaafadeed goor dambe oo loo arko inuu soo daahay ayaa uu ka soo saaray mowqifka Ruushka ee ku wajahan xaalka bariga dhexe marka war-saxaafadeedka Ruushka waxa lagu soo aadiyay iyada oo xiisada wax u muuqdo inay degtaa hadda ay ka taagan tahay bariga dhexe marka maxaa lagu yiri war-saxaafadeedka aqalka Kremlinka ka soo baxay waxa la yiri haddii Iiraan iyo Israa'iil ay ku guuleystaan xabajoojin arintaasi waa wax weyn oo waa uu soo dhaweynaya aqalka Kremlinka laakiin waxa la yiri dad iyo dalal badan ayaa doonaya buu yiri aqalka Kremlinka inay ka faa'iideystaan xaaladda kacsan ee bariga dhexe si ay dabka ugu sii horiyaan una waxyeelayaan xiriirka Moscow iyo Tehran marka halkaas la joogo Ruushku waxa uu raaciyay Ruushku waxa uu damacsan yahay in uu sii xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Iiraan waxaana mar walba ka shaqeynaynaa inaynu garab istaagno buu yiri jamhuuriyadda Iiraan madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa warkiisa wuxuu intaasi ku daray in xaalad walba oo taagan in xukuumadda Ruushku ay garab taagan tahay Tehran marka arinta waxa loo arkaa inay tahay fariin aan waqtigeeda ku imaanin oo aqalka Kremlinka ka timaado marka waxa la leeyahay fariintan waqtigii loo baahnaa Soomaaliya soo gaarin dadka reer Iiraan waqtigii ay garabka ka hayeen ka doonayeen Ruushka waxa loo gaaray in xulfo dhow yihiin Ruushka iyo sidoo kale Iiraan laakiin inta dagaalku socday Ruushku wuxuu u dhaqmayay sida wadan dhaxdhaxaad ka ah colaadda isagoo ilaalinayo xulufada iyo xiriirka kala dhaxeeya Israa'iil iyo sidoo kale xiriirka kala dhaxeeya marka la eego Tehran marka bayaankaas ayaa ka soo baxay Ruushka marka dad badan waxay leeyihiin goor dambe ayuu dagaalka ku soo biiray looma baahnayn waqtigan oo waqtigii ay u baahnaayeen dadka reer Iiraan uma uusan garab istaagin dhinaca kale Israa'iil waxa la soo warinayaa in ay bilowday inay ka argudato dadka reer Falastiin duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa ay tan iyo saaka ay ka geysanaysaa marinka Gaza ee dhulka Falastiin
waxaana duqeymahaasi la soo warinayaa inay ku geeriyoodeen 70 qof halka in ka badan boqolaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sidaasi waxa warisay warbaahinta caalamiga Al Jazeera xaaladda ka taagan Gaza waxa la soo sheegayaa inay tahay xaalad aad u daran iyadoo macluumaadkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in duqeymahaasi aan kala sooc lahayn Israa'iil ay saacadii la soo dhaaf halkaasi ay ku garaacday dhinaca kale konton kamid ah dadka ay maanta Israa'iil ay ku dishay marinka Gaza oo tiradoodu ay dhaaftay hadda 71 qof waxa ay Israa'iil ay ku duqeysay baa leeyahay iyagoo safaf ugu jiro goob lagu bixinayo cunno iyo gargaar sidoo ku waramay telefishinka Al-Meydaan la yiraahdo marka iyaduna waa warbixin kale oo gaar ah marka dhinacaas laga soo tago xabad joojinta macmalka ah ee la dhaxdhigay dhinacyada Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil oo midka kale uu ku eedeynayo in xabad joojinta uu buriyay Trump waa uu ka hadlay waxa uu sheegay in labada dhinac ee Israa'iil iyo sidoo kale Iiraanba ay buriyeen xabad joojinta waxa uu yiri Trump war uu soo saaray Israa'iil iyo Iiraanba waxay ku xadgudbeen xabad joojintii uu isagu ku dhawaaqay taasi oo ku sheegay wax aan loo baahnayn inay tahay Trump sidoo kale waxa fariin rasmi ah uu diray Israa'iil oo isu diyaarinayso weeraro dhinaca cirka ah inay mar kale ay ku qaado Iiraan isagoo u sheegay inay joojiso weerarka Trump barkiisa markaasi social media waxa uu ku soo qoray in Israa'iil ay joojiso gantaalada ay ku ridayso Iiraan haddii ay taasi dhici weyso waxa uu tilmaamay in ay u aqoonsanayaan in tallaabooyinkaasi ay tahay tallaabo xadgudub weyn ah isla markaana ay soo celinayaan duuliyaashooda oo ula jeedo waxaan markaan aan u bedelaynaa xaaladda marka hore Israa'iil ayaanu garab taagnayn laakiin hadda Iiraan ayaanu garab istaageynaa ayaa warkaas iyaduna lagu fasiray marka madaxweynaha Mareykanka isaguna afka ayuu furtay Israa'iil ayuu ku kacay marka ninkii Benjamin Netanyahu ahaa ayaa uu salka dhulka ugu dhiftay afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxa uu sheegay oo sida ay warisay Al Jazeera inaysan ogolaan doonin Mareykanka iyo waliba nidaamka Israa'iil inay fidna ka dhax abuuraan oo ay fidna ka dhax kiciyaan dawladaha gobolka gaar ahaan saaxiibada Iiraan sida walaalaha Qatar iyo sidoo kale dawlado kale oo markaasi Iiraan ay madaafiic ku tuurtay marka Israa'iil hadda waxa la soo sheegayaa in goor dhaweeytay intaan ku guda jirno ay weerartay meelo muhiim ah oo magaalada Tehran ah iyadoo ugu yaraan 2 qarax ayaa laga maqlay waqooyiga Tehran sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha Iiraan marka wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaaladdu sidaas ay tahay marka macluumaadkaas ayaa soo kordhay waana xaaladii ugu dambeeyay laga soo warinayay bariga dhexe marka maxaa u baahan tahay inaad ka ogaato xaaladda bariga dhexe waxa si tartiib ugu dhaqan galayso xabad joojintii Trump uu ku dhawaaqay aqalka Kremlin-ka marka xabad joojinta dhaqan galayso ay u muuqato ama marka wax u eg xabad joojin dhinacyada la dhaxdhiga ayuu mowqifka ku cadeeyay in Iiraan ay garab taagan yihiin dawlado kale oo reer galbeedna ay wadaan qorshe la isugu dirayo aqalka Kremlin-ka iyo sidoo kale xukuumadda Tehran marka wuxuu yiri Iiraan waa saaxiibkeena dhow dad iyo dalal baa ka shaqeynaya ayaa lagu yiri bayaan rasmi oo Kremlin-ka ka soo baxay in la isku diro xulfadeena Iiraan baa lagu yiri marka madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isaguna wuxuu soo dhaweeyay xabad joojinta la dhaxdhigay dhinacyada Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan saacadii la soo dhaafay Iiraan waxay qaaday weeraro muhiim ah oo goobo muhiim ay ku bartilmaameysatay weeraradaasina waa kuwo oo ay ku soo gabagabeynayso duqeynteeda ugu dambeysa ee argudashada ah ee ka dhan ah Israa'iil gudaha wararkeena qaybtan waa nagii taamil la nabadgelyo